guurtida nabadgelyada ee gobolka Sool hormuud ka yahay gudoomiyaha gobolka Sool mudane Mustafa Cabdi Ciise Shiine ayaa maanta kulan ballaaran oo cafis ugu fidiyay maxaabiistii labada beelood ee walaalaha shaqaaqada ku dhaxmartay koonfurta gobolka Sool lagu qabtay xarunta taliska Bilayska ee magaalada Laascaanood waxaana kulankaasi ka soo qayb galay garaadyo cuqaal iyo waxgarad ka soo kala jeeda labadaasi beelood ugu horeyna waxa halkaasi ka hadlay taliyaha qaybta Bilayska ee gobolka Sool waxa isaguna ka hadlay taliyaha xabsiga Laascaanood waxaan soo dhaweynayaa gudoomiyaha oo ku soo dhaweynaya xafiiskii amniga ee gobolka iyo garaadada iyo cuqaasha iyo martisharafta kale ee qiimaha badan iyadoo ay munaasabadan tahay munaasabad midnaan gooniyo u leh amniga iyo nabadgelyada waxaan ilaahay ka baryaynaa inay noqoto mid soo afjarta oo soo dhaweysa wixii ka dhacay gobolka waxa la wareejin doonaa iyaga iyo agabkoodii oo si mugli loo wareejin doonaa waxaan rajaynayaa cuqaasha iyo garaadada iyo waxgarka kale ee qiimaha leh halkan jooga inay u noqoto fure inay u noqoto miftaax inay u noqoto wax u fura nabadda oo ay u noqoto silsiladii ugu wanaaga badnayd ee wax lagu furo maanta waxaan ku sii deynaynaa maxaabiista 3 maxbuus oo u xidhnaa nabadgelyo labadii beelood ee walaalaha ee macnaha halkan dhibaatadu ka dhex taagnay maanta maxaabiistan halkan lagu sii deynayaa shalay albay ahaayeen maantana waxa weeye dadka iyaga soo jeeda daqiiqadiisana loogu keenay ayaanu waxaanu ka shaqaynay inaanu daweyno maskaxdooda oo ka nadiifino dhibaatadii iyo qabyaaladii iyo qulnimadii ku dhex jirtay ee isku dilayeen maanta waxay diyaar u yihiin inaanay ku noqon qabiilkii qofka maanta waanu qoranay waan register garay nambaradiisana boolisku wahay horiga dib loo qabto dadcelimis wanaagsan labada jeef caaqil baa loo dafusay mas'uuliyadda dadka la wareegay gobolka Sool ka hadlay garaadada iyo cuqaasha labada beelood ee walaalaha ay shaqaaqadu ku dhaxmartay koonfurta gobolka Sool gabagabadiina gudoomiyaha gobolka Sool mudane Mustafa Cabdi Ciise Shiine oo isaguna halkaasi kala hadlay maxaabiistii cafiska loo fidiyay beelaha iyo askarta halka inala joogta iyo kuwii runtii hawshan ka qayb qaatay ee xagga joogay dhamaantood waxa weeye arintani waa arrin nabadgeliyo runtii haddii aan maaragtay runtii gacantaas lagu qaban oo aad iyo aad aan ciidankaas uga qayb qaadan runtii waxa laga yaabi kari lahaa maanta inaan raggan laga wada hadleen maxaa yeelay iyaga la badbaadiyay dadkii de kalena waa laga badbaadiyay waxaan runtii aad ugu mahadnaqaynaa gudoomiyaha gobolka iyo taliyayaasha ciidanka oo aan runtii aad uga wada xiriirnay raggan soo deyntiisa iyo waliba madax kale oo maaragtay iyagu laftooda sarsare oo aan kala hadalay waa jireen dhammaantood inay noo ogolaadeen in aanu nimanka la sii daayo iyo qalabkoodaba aad iyo aad baan uga mahadnaqaynaa anagoo garan kara inay runtii arrin adag tahay hase yeeshee dee ma aha inta isdilaysa intan ma aha intani fure waxay u noqonaysaa sii dooyintooda in intii kalena ay runtii kala badbaadaan oo dee dadkan oo dhammaan lamaba soo wada qabqaban karo colaaduna colaad runtii baahsan bay ahayd oo maaragtay meelo badan ku baahsan marka aad iyo aad waxaan u rajaynaynaa inay insha allahu tacaala fure u noqon doonto waxa kale oo insha allahu tacaala aan damaanad qaadaya labadii beeloodba halka jooga waxa jooga labadii jiif caaqil iyo cuqaashi kale ay wataan oo runtii markaan ka fikiray in aan halka isugu keeno qolo walbi dadka hawshan runtii ilaah baa mahadda leh hadda labaadna waxa leh kolba maamulka gobolka oo gudoomiyuhu ugu horeeyo iyo saraakiisha oo ka qayb qaatay dadka walaalaha ah ee shaydaanku dhex shaqeeyay inay kala badbaadiyaan oo halka maanta ragga la isugu keenay iyaga naftooda la badbaadiyay iyo hantidoodiiba haddaan ciidanku dhex gelin oo kala badbaadin oo iyaga naftooda marka uusan badbaadina maanta dee waxaa la tahay wax ka weyn ama dhibaato ka weyn baa meesha ka dhici lahayd marka waxa weeye aad iyo aad baan hawshaas dhawaashale inay sii kordhiyaan oo hawshii waxa la hawl kala madaalooyin weli waa hogadii hawshii waa la isu qoor keentay
nabadiina waa lagu dhawaaqay degmooyin baa jira tuulooyin baa jira waxa la yiri dadkii ha lagu celiyo dadkii iyadan ciidamada qaranku tagin iyagoo qolaba soconaysa isma aaminaya waxaan leenahay kordhiya tuuladii walba dad lagu celinayaba ee dad ka barakacayba iyadoo aan qori lala soo geli karin ciidamadu xakamayn karaan ha tage waxaan leenahay annagu haddaan nahay odayaasha waa run badidoodu markii horeba dhib kama shaqayn laakiin dadkii dhibta ka shaqaynayay waxna waa kuwan aad isu keenteen oo maanta aad leedihiin waxay ka mid yihiin dadka ugu wacan halkan anigu waxaan u iminaan idinka idhaahdo dhowr kelmadood maanta wixii laga bilaabo horta waad fasax baad tihiin oo maxaabiis ma aydin iminka saacad ka hor maxaabiis baad aydeen laakiin iminka waxaad tihiin xor baad tihiin oo xorriyaddiinni dib baad u hesheen xorriyadda inaad dib u heshaan waxaa ka mas-uula odayadiinni oo khaasatan waxaa ka mas-uula garaadadii iyo waayeelkii kale ee nabadda u fadhiyey dhumay u fadhiyey oo dushooda ku dagaalanteen jannadii geeyo intii dhimateen inuu ilaahay jannada geeyaan maaragtay ilaa weydiinaynaa intii dhaawacayna inuu ilaahay caafiyo ka bogsiiyo dhaawac maskaxdiina inuu ilaahay cudur ka saaro cudurkan walaalaha isdilaya maanta cadow ka badan baad leedihiin inta maanta aad isu disheen inta cudurkan inuu ilaahay ka saarana waan idinku ducaynaa maanta waan idin soo qabanay nin kasta magaciisa waan haynaa qorigiisa lambarkiisa waan haynaa moobilkiisana waan haynaa haddii mar labaad gacanteeda soo gashaan cid inaga keensi deyn mayso waxaan rajaynaynaa inaad walaalo noqotaan erge u noqotaan nabadda haddaad shalay ogeydeen idinkoo qorigiinu ka taliya hawdka oo ninkii qori sitaa uu ka xoog badan yahay ninka kale sacboolayda ah haddii aad ogeydeen cid kula hadli kartaa inaanay jirin markaad hawdka joogtay maanta waxaad ogtahay inay dawladu joogto meeshaad joogtana lagaa soo qabanayo adigoo ciidan oo dagaalamaya lagu soo qabtay adigoo keligaan ku soo qabanaynaa dalkan dawlad buu leeyahay ciidan kula mid ah baa jira maanta xereer guud wuxuu soo jeeday rag inta badan ciidamada qoru yiri nimankan mala wanaag weyd ka arkay inta xidhnaydeen dalkan ciidan buu leeyahay dawlad buu leeyahay oo waayeel buu leeyahay oo qaal buu leeyahay oo garaadu leeyahay nabadaynu rabnaa intaas nabad baan u taaganay nabad baa loo wada taagan yahay lamad baa waxa soo ciidanaydu ku dhex joogaan shaq baa